kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal halkani waa janalka Xareed Media waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka ciyaaraha ee Xareed Media oo habeenada Arbacada iyo Jimcaha soo galayaan aad ka daawataan janalka Xareed Media الرياضة والملعبة ومهما لعبت فلن أتعبا ما ربحت فشيء جميل إذا ما خسرت فلن أغضبا تيراريراريراريرارم تيراريراريراريرارم habeenimo Arbaco ah 22 bisha Janaayo sanada 2020 qodobada dhammaan aynu caawa barnaamijkan idinku soo gudbi doonaan waxaa kamid ah ka sheekaynta shanta horyaal ee qaaradda Yurub sida Premier League, La Liga, Serie A Talyaaniga, Bundesliga Jarmalka iyo waliba horyaalka Faransiiska. Horyaalka Ingiriiska oo toddobaadkan kulamo laga ciyaaray Manchester United iyo Chelsea oo guuldarooyin la kulmay, Liverpool oo guuleysatay si la mid ah Arsenal, Tottenham City oo ayagana join la kulmay Serie A Talyaaniga, Juventus oo horyaalka la wareegtay hogaamintiisa, Inter Milan oo barbardhac lagu celiyay, AC Milan oo guulaheeda si wadata si la mid ah Isbaanishkana Barcelona iyo Real Madrid oo wada guuleystay, Atletico Madrid oo jidka loo galayna waa maqli doonta. Sidoo kale waxaad ku daawan doontaan barnaamijkeena Bundesliga Borussia Dortmund oo comeback la yaab leh sameeyay. Sidoo kale horyaalka Faransiiska toddobaadka hadii la ciyaaray waynu eegi doonaa kulamadiisa. barnaamijka ayaynu ku wada faaqidi doonaa dhammaan shanta horyaal haduu eebo inuu ogolaado. Intaasi daawadayaal waa qodobada aan ku qaadaa dhigi doona barnaamijkeena. Fadlan daawade hadii aad nagu cusub tahay ku soo biir asxaabta nala jaan qaado oo subscribe saar channelka gambaleelkana furo. muuqaalkana like saar lana wadaag asxaabtaada si aan u ogaano qodobka ku xiisa geliyay. fadlan faalo inooga reeb. waa tahay daawadayaal markaana waxaynu gudagali doonaa barnaamijkeena ciyaaraha iyo waliba ka sheekaynta dhanka iyo waliba horyaalka English Premier League toddobaadkan kulamada laga ciyaaray. toddobaadkan kulamadii 23aad ee English Premier League ayaa laga ciyaaray iyadoona naadiyaasha waaweyn sida Arsenal, Manchester City, Tottenham ay barajooyin la kulmeen, halka Chelsea United guuldarooyin ay ka qaateen naadiyaasha Liverpool iyo Newcastle United. balse hadda waxaynu gudagalaynaa ka sheekaynta kulamada sida loo kala ciyaaray. kulanka ugu horeeyay Watford iyo Tottenham ayaa ciyaaray wuxuuna ku soo dhamaaday barbardhac eber iyo eber ah. si la mid ah Arsenal ayaa garoonkeeda Sheffield United ku martiqaaday gool iyo gool ayayna isla dhaaf waayeen. Brighton idana waxay garoonkeeda ku martiqaaday naadiga Aston Villa gool iyo gool ayayna ku wada heshiiyeen. si la mid ah Manchester City ayaa garoonkeeda ku soo dhaweysay Crystal Palace. City ayaa doonaysa inay guul ka gaarto Crystal Palace maadaama ay doonayso in ay si xajiisato kaalinteeda labaad ee horyaalka English Premier League. City ayaa gool looga naxsaday qaybta hore balse waxaana goolkaasi kansalay laba gool uu dhaliyay Sergio Aguero balse ciyaarto dhamaad ku dhow kubadda bidix laga soo laaday waxa iska dhaliyay Fernandinho oo 3 dhibcood u diiday in naadigiisa qaadato. si kastaba ha ahaatee City ayaa laba gool Crystal Palace la dhaafaysay. si la mid ah Norwich iyo waxa ciyaaray AFC Bournemouth gool iyo waxba Norwich ayaa ku adkaatay. kulanka kale waxa uu dhaxmaray Southampton iyo waliba Wolves laba gool iyo 3 goolna Wolves ayaa ku adkaatay. West Ham United iyo Everton gool iyo gool ay ku kala tageen. Newcastle ayaa garoonkeeda ku soo dhaweysay naadiga Chelsea oo hogaamiyo Super Frank Lampard. ciyaartaasna waxay ku soo dhamaatay gool iyo waxba oo ay ku khasaartay naadiga Chelsea. Chelsea ayaa ciyaarta dhan walba xakameeynayay balse nasiibka ma uusan saacidin in ay xitaa hal dhibic ay ka soo qaadato garoonka Newcastle United ST James Park. ciyaarto gabo ku dhow ayaa guusha laga dhali naadiga Blueska ama Chelsea. kulanka kale Leicester City ayaa u safartay naadiga Burnley laba gool iyo gool ayaana looga soo adkaaday naadiga Leicester City. Leicester ayaa labada kulan ugu dambeysay guuldarooyin la kulantay iyadoona lumisay kaalinteedii labaad ee horyaalka kaga jirtay. kulankii ugu dambeeyay la wada sugayayna waxa uu dhexmaray naadiyaasha ku xifaaltama horyaalka English Premier League Liverpool iyo Manchester United. ciyaartaas ayaa saadaalin kala duwan laga baxshay balse saadaalin walba waxa isha lagu hayayba natiijada ka soo bixi karta.
ciyaarta oo bilaabatay daqiiqadii hore ciyaartaba Manchester United oo laga dareemayay habacsanaan ayaa gool lagu dahfuray hase ahaatee ciyaarta qaybta koowaad gooli waxba ayaa lagu kala nastay Manchester ayaa qaybta labaad diiranaan isgelisay balse maysan u suuragelin inay goolka iska soo guddo ciyaarta oo dhammaad ku sii dhowna waxaa soo gabagabeeyay gooshii labaadna ka dhaliyay Manchester United Mohamed Salah oo soo gabagabeeyay abaartii ka haysatay inuu Manchester gool ka dhaliyo Mohamed Salah tan iyo markii uu ku soo biiray naadiga Liverpool wax gool ah kama uusan dhalin Manchester United asigoo kaga hortagay horyaalka English Premier League balse kulamadii toddobaadkan la ciyaaray ayna Manchester United iyo Liverpool isku wajaheen ayuu soo afjaray in uu Manchester United gool kaga dhaliyo English Premier League daawadayaal markaana waxaynu eegaynaa dhanka iyo waliba kala sareynta horyaalka hadii aad daawateen sida kulamada loo kala ciyaaray iyo waliba guulaha laga kala gaaray kulamadaasi haatanna hadii aynu eegno dhankii kala sareynta alaaba Liverpool ayaa hogaaminaysa horyaalka English Premier League iyadoo ciyaartay 22 kulan 21 kulan ayay guuleysatay hal kulan ayay barbardhac la kulantay wax guul darro ahna ma aysan soo gaarin 52 gool ayay dhalisay 14 gool ayaa laga dhaliyay 38 goolna waa uu soo hartay 64 dhibcood ayayna haysataa kaalinta labaad Manchester City ayaa soo fadhiisatay kadib guuldarooyinkii ugu dambeeyay ee Leicester soo gaaray City waxay ciyaartay 23 kulan 15 kulan ayay adkaatay 3 kulan barbardhac ayay gashay 5 kulanna waa laga adkaaday 64 gool ayay dhalisay 27 gool ayaa laga dhaliyay 37 gool ayaa u soo hartay 48 buudana waa ay haysataa kaalinka saddexaad Leicester City ayaa ku jirta 23 kulan ciyaartay 14 kulan ayay guuleysatay 3 kulan ayay breejo gashay 6 kulan waa laga adkaaday 48 gool ayay dhalisay 23 gool ayaa laga dhaliyay 25 gool ayaana u soo hartay kaalinta afraad Chelsea ayaa ku jirta 23 kulan ciyaartay 12 kamid ayay guuleysatay 3 barbardhac ayay la kulantay 8 kamidna waa la garaacay 39 gool ay dhalisay 30 gool ayaa laga dhaliyay 9 goolna way u soo haraysa kaalinka shanaad waxa ku jirta Manchester United 23 kulan ciyaartay 9 ay badisay 7 barbardhac gashay 7na waa laga adkaaday 36 gool ay dhalisay 27 gool laga dhaliyay 9 gool ayaana u soo haraysa haddii markaan eegno naadiyaasha ugu hooseeya horyaalka English Premier League kaalinta 18aad Aston Villa ayaa fadhisa 23 kulan ciyaartay 6 kulan ay adkaatay 4 ay barbardhac gashay 13 waa la garaacay 29 gool ay dhalisay 44 gool ayaa laga dhaliyay 15 gool oo deen ah ayaa lagu leeyahay naadiga 19aad ku jirto waa AFC Bournemouth oo ciyaartay 23 kulan 5 kulan ayay badisay 5na barbardhac ayay gashay 13na waa laga adkaaday 20 gool ayay dhalisay 36 goolna waa laga dhaliyay 16 gool oo deen ah ayaa lagu leeyahay naadiga ugu dambeeyay waa Norwich City 23 kulan ciyaartay 4 kulan ayay badisay 5na barbardhac ayay gashay 14na waa laga adkaaday 23 gool ay dhalisay 45 gool ayaa laga dhaliyay 22 gool oo deen ah ayaa lagu leeyahay kala sareynta waa inta Liverpool ayaa hogaaminaysa Norwich City-na waa ay u dambaysaa horyaalka markaana dhanka ay waliba gool dhalinta hadii aynu eegno cid hogaaminaysa Jimmy Vardy ayaa hogaaminaya gool dhalinta Leicester City ayuu ciyaara 17 gool ayuu dhaliyay 3 gool oo penalty ayaa ugu jirta kun Aguero oo Manchester City u ciyaara 15 gool oo dhaliyay 2 gool oo penalty ayaa ugu jirta Aubameyang Arsenal ayuu u ciyaara 14 gool oo u dhaliyay 1 gool oo penalty ayaa ugu jirta Danny Ings waxa uu u ciyaara Southampton 14 gool oo dhaliyay wax penalty ugu jirta Marcus Rashford Manchester United 14 gool oo u dhaliyay 5 penalty ayaa ugu jirta Tammy Abraham Chelsea u ciyaara 13 gool ayuu u dhaliyay wax penalty ugu jirta Harry Kane oo Tottenham u ciyaara 11 gool oo u dhaliyay 2 penalty ayaa ugu jirta Sadio Mane Mohamed Salah Raheem Sterling waa min 11 gool ayay leeyihiin markana waxaynu gudagalaynaa dhanka iyo waliba caawinaada horyaalka English Premier League ee cidda hogaaminaysa Kevin De Bruyne oo ciyaara Manchester City ayaa hogaaminaya caawinaada 15 caawin ayuu sameeyay Arnold oo Liverpool u ciyaara ayaa ku xigay asna wuxuu sameeyay 9 caawin David Silva Manchester City wuxuu caawiyay 7 gool sidoo kale
ciyaaryahanka Tottenham u ciyaara ee Son ayaa caawiyay 7 gool. Riyad Mahrez Manchester City 7 gool ayuu caawiyay. markaana waxaynu halkaas kaga talaabeynaa daawadayaal ka sheekeynta horyaalka English Premier League isu diyaariya inaad daawataan gordhow ka sheekeynta horyaalka La Liga Isbaanishka. waa tahay daawadayaal markaan Isbaanishka ayaynu gudagalaynaa kulmadiisa 20aad ayaa toddobaadkan laga ciyaaray kulanka ugu horeeyay waxa uu dhaxmaray Leganes iyo waliba Katafe 3-1 Katafe ayaa ku adkaatay si la mid ah Levante gooli waxba waxa kaga adkaatay Alaves. Real Madrid oo 2 gool iyo gool kaga adkaatay Sevilla. Osasuna eber ayaa la gashay Real Valladolid. si la mid ah Atletico Madrid ayaa ciida afka loo daray Eibar ayaana 2 gool iyo waxba kaga adkaatay halka Real Mallorca ay 4 gool iyo gool Valencia ku garaacday. Real Betis 3-1 Real Sociedad ayay kaga adkaatay. Villarreal 1 gool iyo 2 gool Espanyol ayaa kaga adkaatay. Atletico Bilbao gool iyo gool ayay Celta Vigo la gashay halka Barcelona 1 gool iyo waxba Granada kaga adkaatay. markan hadii aynu eegno ka sheekeyntiisa dhankiyo kala sareynta horyaalka La Liga Barcelona ayaa kaalinka koowaad ku jirta 20 kulan ciyaartay 13 ayay badisay 4 ayay barbadhac gashay 3 laga adkaaday 50 gool ayay dhalisay 23 goolna waa laga dhaliyay 27 gool oo qura ayaa u soo hartay 43 dhibcoodna waa ay leedahay. kaalinka labaad waxa ku jirta Real Madrid oo Barcelona isku dhibca yihiin 20 kulan ayay ciyaartay 12 ay badisay 7 barbadhac gashay 1 kulan ayaa laga adkaaday 38 gool dhalisay Real Madrid 13 gool ayaa laga dhaliyay 25 gool ayaa u soo hartay 43 dhibcoodna waxa ay la wadaagtaa naadiga Barcelona. Atletico Madrid oo toddobaadkan jidka loo galay 20 kulan ciyaartay 9 badisay 8 barbadhac gashay 3 kulan gool darre ayay la kulantay 22 gool dhalisay 14 gool laga dhaliyay 8 gool oo qura ayaana u soo hartay waxayna leedahay Atletico Madrid 35 dhibcood. kaalinka afraad waxa soo fariisatay naadiga Sevilla 20 kulan ciyaartay 10 kulan ayay badisay 6 ayay barbadhac gashay 5 ayaa laga badiyay 25 gool dhalisay 20 gool laga dhaliyay 5 gool nadiif ayaa u soo hartay 35 dhibcoodna waxa ay la wadaagtaa naadiga Atletico Madrid. naadiga shanaad ku jirta waa Katafe 20 kulan ciyaartay 9 ayay badisay 6 barbadhac gashay 5 waa laga adkaaday 29 gool dhalisay 20 gool laga dhaliyay 9 gool waa ay u soo haraysa. kaalmaha ugu dambeeya marka hadii aynu eegno Celta Vigo ayaa kaalinta 18aad ku jirta oo leh 16 dhibcood. kaalinka 19aadna Leganes ayaa ku jirta oo 14 dhibcood leh. kaalinka ugu hooseeyana waa Espanyol oo 14 dhibcood leh. marka waa gool dhalintii xidigaha ugu horeeya ayaynu soo qabanaynaa. Lionel Messi oo Barcelona u ciyaaraya 14 gool ka hogaaminaya. Karim Benzema Real Madrid 12 gool ayuu leeyahay. Luis Alberto Suarez waxa uu leeyahay 11 gool ayuu leeyahay. markana waxa eegaynaa horyaalka La Liga dhankii waliba caawinaada halka ay kala marayso. Luis Suarez 7 caawin ayuu sameeyay FC Barcelona ayuu u ciyaara. Lionel Messi 6 caawin uu sameeyay FC Barcelona u ciyaara. Eva Banega 6 caawin uu sameeyay Sevilla ayuu u ciyaara. Rodrigo 6 caawin uu sameeyay Valencia ayuu u ciyaara. Karim Benzema 5 caawin uu sameeyay Real Madrid oo u ciyaara. Andre Correa 5 caawin uu sameeyay Atletico Madrid ayuuna u ciyaara. markana waxaan halkaas kaga talaabeynaa daawadayaal dhankii waliba horyaalka Isbaanishka. markana waxaynu gudagali doonaa horyaalka Serie A ee dalka Talyaaniga. toddobaadkan kulamadiisii laga ciyaaray ayaynu eegi doonaa waliba natiijooyinka ka soo baxay kulamadaas oo idil ayaynu soo qaadan doonaa hadduu eebweyne yiraahdo. waa tahay daawadayaal markana waxaynu gudagalaynaa ka sheekeynta horyaalka Serie A ee dalka Talyaaniga. asigana waxa laga ciyaaray kulamadiisii 20aad. kulanka ugu horeeyay waxa uu dhexmaray Lazio iyo waliba Sampdoria 5 gool iyo gool. Lazio ayaa ku adkaatay. Sassuolo 2 gool iyo gool Torino ayay kaga adkaatay. Napoli waxay khasaare kala kulantay 2-0
Fiorentina halka Milan ay 3 gool iyo 2 gool Udinese kaga badisay. Brescia 2 gool iyo gool Cagliari ayaa la gashay. Bologna iyo waliba Hellas Verona gool iyo gool ayay galeen. Lecce iyo Inter Milan gool iyo gool ayay kala tageen. Genoa 3 gool iyo gool guuldaro Roma ayay kala kulantay. Juventus 2 gool iyo gool Parma ayay kaga adkaatay. Atalanta gool Isbaanna 2 gool Atalanta ayaana guuldaradaasi qaadatay. Markaana Serie A waxaynu eegi doonaa kala sareyntiisa sida loo kala hogaaminayo kulmadiisa 20aad maadaama toddobaadkan la ciyaaray yaa hogaaminayo waynu eegi doonaa horyaalkaasi. Juventus ayaa kaalin koowaad ku jirta 20 kulan ayay ciyaartay 16 kulan ay badisay 3 ay barbardhac gashay 1 kulan laga adkaaday 39 gool ay dhalisay 19 gool laga dhaliyay 20 gool ayaana u soo hartay 51 dhibcoodna waa ay leedahay. Inter Milan 20 kulan ciyaartay 14 ay badisay 5 ay barbardhac gashay 1 laga adkaaday 41 gool ay dhalisay 17 laga dhaliyay 24 gool oo soo hartay 47 dhibcoodna waa ay leedahay. Lazio 19 kulan ciyaartay 14 ay badisay 3 barbardhac gashay 2 laga adkaaday 46 gool ay dhalisay 18 gool laga dhaliyay 28 gool ayaana u soo haraysa 45 dhibcoodna waa ay leedahay. Roma kaalinta afraad ku jirta 20 kulan ciyaartay 11 ay badisay 5 barbardhac gashay 4 laga adkaaday 32 gool ay dhalisay 22 laga dhaliyay 15 gool oo soo hartay 38 dhibcoodna waa ay leedahay. kaalinta shanaad Atalanta ayaa ku jirta 20 kulan ciyaartay 10 ay badisay 5 barbardhac gashay 5 laga adkaaday 50 gool ay dhalisay 28 gool laga dhaliyay 22 gool oo soo haraysa 35 dhibcoodna waa ay leedahay. marka naadaasha ugu dambeeyay aynu eegno Isbaal 18 ku jirta 15 dhibcood ay leedahay. Brescia 19 ku jirta 15 dhibcood ay leedahay. Genoa ay ugu hooseyso 14 dhibcood ayay leedahay. markaana kala sareynta horyaalka Serie A hadii aynu ka talaabno aynu u gudubno dhanka iyo waliba gool dhalintiisa iyo caawinaadiisa. gool dhalinta waxa ay u kala sareeyaan sida tan Ciro Immobile 23 gool Lazio u ciyaara. Cristiano Ronaldo Juventus 16 gool dhaliyay. Romelu Lukaku 14 gool dhaliyay. Inter Milan ayuu ciyaara. caawinaada aynu markaan Serie A eegeynaa xidiga u caawinaad badan waynu arki doonaa. Luis Alberto Lazio u ciyaara 12 caawin oo sameeyay iyo waliba Lorenzo Pellegrini wuxuu u ciyaara Roma 7 caawin oo sameeyay. Andre Gomes waxa uu sameeyay 7 caawin. Atlanta u ciyaara. markaan halkaas aynu kaga talaabayna horyaalka dalka Talyaaniga. markaana waxaynu eegi doonaa horyaalka ugu dambeeya ee Bundesliga oo aynu ku eegi doona kulamadiisa iyo waliba kala sareyntiisa si laacayna gool dhalinta yaa hogaaminaya yaa caawinaada hogaaminaya kaalmaha horeena horyaalka naadaasha ku jiraan ayaan wadaagi doonaa iyo waliba kaalimaha ugu hooseeya cidda kaga jirta horyaalka ayaa daawan doontaan daawadeen. waa tahay daawadayaal markaana waxaynu gudagaleynaa ka sheekeynta falaqeynta horyaalka Bundesliga ee Jarmalka. kulankiisa ugu horeeyay waxa la ciyaaray 17 January Schalke 0-4 2 gool waxba kaga badisay Borussia Mönchengladbach. si la mid FC Augsburg 3 gool iyo 5 gool waxa ku garaacay Borussia Dortmund. Fortuna 1 gool waxba waxa kaga badisay Werder Bremen. Cologne 3 gool iyo gool Wolfsburg ayay ku garaacday. Hoffenheim 2 gool iyo gool waxa ku garaacday Eintracht. si la mid Mainz Eberschen waxay 2 gool iyo gool dare kala kulantay Freiburg. RB Leipzig waxay 3 gool iyo gool kaga adkaatay naadiga Union Berlin. Hertha BSC ayaa 4 gool waxba waxa ku garaacday Bayern Munchen. Paderborn 1 gool iyo 4 gool waxay gool dare kala kulantay Bayer Leverkusen. markaana waxaynu eegi doonaa kala sareynta horyaalka Bundesliga iyo waliba kulamada laga ciyaaray. RB Leipzig ayaa kaalin koowaad ku jirta 18 kulan ciyaartay 12 badisay 4 barbardhac gashay 2 laga adkaaday 51 gool dhalisay 22 gool laga dhaliyay 30 gool ayaa soo haraysa 40 dhibcoodna waa ay leedahay. Bayern Munich ayaa kaalin labaad ku jirta 18 kulan ciyaartay 11 kulan badisay 3 ay barbardhac gashay 4 kulan laga raacay 50 gool dhalisay 22 gool laga dhaliyay 28 goolna way soo haraysa.
kaalinka saddexaad waxaa ku jirta Borussia Mönchengladbach 18 kulan ciyaartay 11 badisay 2 barbardhac gashay 5 laga adkaaday 33 gool dhalisay 20 gool laga dhaliyay 13 gool ayaa soo hartay 35 boodana waa ay leedahay Borussia Dortmund ayaa kaalinta afraad ku jirta 18 kulan ciyaartay 9 badisay 6 barbardhac gashay 3 laga adkaaday 46 gool dhalisay 7 gool laga dhaliyay 19 gool ayaa soo haraysa naadaashu ugu hooseeya haddii aynu eegnana Werder Bremen kaan 16aad ayay ku jirta 17 dhibcood ay leedahay Fortuna 15 dhibcood ay leedahay kaan 18aad waxaa u dambayso Paderborn oo 12 dhibcood leh markaana waxay eegaynaa horyaalka Bundesliga gool dhalintiisa cidda hogaaminaysa laba xidig ay isla hogaaminaysa oo kala Robert Lewandowski Bayern Munchen 20 gool ayuu leeyahay si la mid ah Thomas Wiener oo u ciyaara sana RB Leipzig 20 gool ayuu leeyahay sana labadaas xidig ayaa ugu sareysa dhanka iyo waliba caawinada ayaynu eegaynaaye Thomas Muller ayaa ugu sareeyay Bayern Munchen 12 caawin sameeyay Jose Sancho Borussia Dortmund 10 caawin sameeyay Torken Hazard 9 caawin sameeyay oo asna Dortmund u ciyaara saddexdaas ciyaartoy ayaa ugu sareeya dhanka iyo waliba caawinada waa tahay daawadayaal markaan haddii aynu eegno horyaalka dalka Faransiiska toddobaadkan wax kulamo ah lagama ciyaarin oo waa laga nastay toddobaadka soo aadan ayaa laga ciyaari doona waa tahay daawadayaal waxaan isla soo gaarnay gunti iyo gunaanadkii barnaamijka ciyaaraha ee Xareed Media markaana waxaynu eegaynaa kulamada 24aad oo caawa laga ciyaari doono horyaalka English Premier League horyaalka English Premier League ayaa caawa kulmadiisa 24aad la ciyaari doona kulmadaasni qaar ka mid ah ayaynu haatan idin soo baahin doona kulanka ugu horeeya waxa uu dhexmari doona Sheffield United iyo waliba Manchester City ciyaartaasna waxay ka dhici doontaa garoonka Sheffield United ee lagu magacaabo Baramalani saacaduna waa 4:00 habeenimo sidoo kale Everton ayaa garoonkeeda Goodison Park waxay ku soo dhaweey doontaa naadiga Newcastle United saacada 4:00 habeenimo sidoo kale AFC Bournemouth ayaa garoonkeeda Vitality Road waxay ku marti qaadi doontaa naadiga Brighton isla saacada 4:00 habeenimo sidoo kale Aston Villa ayaa garoonkeeda Villa Park waxay ku soo dhaweey doontaa naadiga Watford saacadu marka ay tahay 4:30 sidoo kale Crystal Palace ayaa garoonkeeda Selhurst Park waxay ku marti qaadi doontaa isla caawa naadiga Southampton saacaduna marka ay tahay 4:00 habeenimo kulanka ugu adag ee caawa la sugay waxa uu noqonayaa derby London kaas oo ah Chelsea iyo Arsenal garoonka Stamford Bridge 5:15 ayuuna kulankaas baasbi doona waana kulanka indhaha ay ku hayaan dadka sportiska taageero qodobadaasi ayaa ugu doorkoona kuwa Ingiriiska caawa kulamada laga ciyaari doono haddii aynu markaan sii eegno quarterfinalka Coppa Italia ayaa isna caawa la ciyaari doona naadiga Napoli ayaa garoonkeeda San Paolo Lazio ku marti qaadi doonto saacadu marka ay tahay 4:45 hadduu eebweyne yiraahdo waa tahay daawadayaal waxaan isla soo gaarnay guntiyo gabagabadii barnaamijka ciyaaraha ee channelka Xareed Media guud ahaan daawadayaal waa inaga inta barnaamijkii aad kala socoteen Xareed Media intaan ku kulmi doona barnaamijkan kiisa xiga waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo الرياضة